inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa in YouTube-ka subscribe dhaadii muuqaalkan aad like saarto waa kuma aqoonta daawashadaada ku soo dhawaada filimkeena maanta dhamaadkii 2017 dagaalkii Ciraaq ayaa si tartiib u sii dhamaanay madaxweynaha Bush waxa uu ku dhawaaqay guul waxaana socda howlo dib u dhisa sargaal maasis iyo ilaaliye kale oo lagu magacaabay Isaaq ayaa loo diray meel saxara ah oo ku taal Ciraaq halkaas oo laga dhisayo tubo weyn dhammaan shaqaalihii Mareykanka ah oo goobta ka shaqeynaya waa la dilay hawshoodu waxa ay noqotay inay raadiyaan qofkii dilay dadkan hor inta aan la keenin shaqaale kale waxa ay bilaabeen inay isku qariyaan dhir iyo dhagxaan si ay u ilaaliyaan goobta iyadoo ay jirto qorrax aad u kulul muddo 20 saacadood maasis waxa uu bilaabay inuu dulqaadkii ka yaraado isagoo mooday in aysan jirin askar dambe oo Ciraaqi ah markii meydadka la fiiriyo waxa ay u muuqataa in goobta inta la weeraray kadibna laga tagay Isaaq waxa uu sheegayaa in aanay jirin raad muujinaya in kooxo badan ay soo weerareen goobtan isla markaana waxa uu xusayaa in dadka la dilay dhamaantood laga toogtay madaxa taasuna ay tilmaamayso inuu falkan geystay sniperkii caanka ah ee reer Ciraaq ee Jubba hase yeeshee Maasis waxa uu rumaysan yahay inay suurtagal ahayn in hal qof uu ku dilo 30 ilbiriqsi intaanoo dad ah ugu dambeyntii Maasis uu ku daalay sugitaanka wax dhaqdhaqaaq muujinayo waxa uuna u dhaqaaqay goobta si uu u baaro si loo dilay dadkan isaga oo ka codsanaya Isaaq inuu ilaaliyo maasis waxa uu bilaabay inuu meydadka mid u baaro isaga oo raadinaya wax cadayn ah waxa uu bilaabay inuu rumaysto markii uu arkay in dadka laga toogtay madaxa waxa uuna u dhaqaaqay bartamaha goobta si uu u ogaado halka ay ka yimaadeen rasaastu halka uu Isaaq ka codsanayo inuu u soo laabto dib lama filaan ah xabad ayaa ku dhacday maasisna waa dhacaya isagoo caloosha ka dareemaya xanuun saayid ah Isaaq isagoo saayid u walwalsan waxa uu ordayaa qaab dadab ah si uu uga fogaado rasaas kale markii uu ku dhawaaday maasis isaga ayaa lugta laga toogtay Isaaq ma awoodo inuu badbaadiyo maasis markaasna waxa uu cararayaa dhanka darbiga si uu isugu qariyo dagaal maasis oo wali nool ayaa Isaaq u sheegay inuu la xiriiro saldhiga si uu gargaar u weydiisto laakiin marka hore Isaaq waxa uu ogaadaa in dhaawaca lugtiisa uu saayid u xun yahay sidaa darteed waxa uu lugta ku xirayaa suun si uu u joojiyo dhiigga wuxuu qaatay raadiyaha si uu la xiriiro saldhiga balse waxa uu ogaanaa in raadiyo uusan shaqeynayn sababtoo ah sniperku waxa uu toogtay anteenadii lama filaana maasis markale ayuu la xiriirayaa Isaaq waxa uuna weydiinayaa halka sniperku joogo si uu u toogto inkastoo Isaaq uga digayo in sniperku dareemi doono dhaqdhaqaaq kasta oo sameeyo kadibna tooga doono Isaaq waxa uu bilaabayaa inuu dalool yar u sameeyo darbiga uu joogo si uu uga fiirsho laakiin gacantiisa dhagax ayaa ku soo dhacay oo ayaana gaaray tan maasis waxa uu isku dayayaa inuu gaaro qorigiisa balse uu meeyr dambalmay sababtoo dhiig badan ayaa ka baxay Isaaqna waxa uu midi ku soo saarayaa xabadii ku jirtay isagoo xanuun saayid dareemaya waxa uuna dhaawac ku xirayaa maro isagoo waqti yar kadib uu meeyr dambalmay daqiiqado kadib ayuu Isaaq toosaya markii uu maqlo oo sheegaya inuu yahay sargaal ka tirsan ciidanka Isaaq si degdeg ah ayuu warbixin u siinayaa una weydiisanaya inay u soo diraan gargaar daawo ah laakiin Isaaq mar kale ayuu bilaabayaa inuu ka shakeeyo codka kadib markii uu weydiiyay su'aalo aan caadi ahayn waxa uu sargaalku weydiiyay inuu siiyo tilmaamo sax ah goobta uu ku sugan yahay ama uu kor u rido rasaas si gargaarka loogu soo rido goobta uu joogo Isaaqna waxa uu sheegayaa inay tan ka hor imaanayso xeeladaha ciidanka markaana ay qatar gelinayso noloshiisa markii uu si fiican u dhageysto codka ninka wuxuu ogaadaa inuusan Mareykan ahayn waa Jubba sniperkii Ciraaqiga ahaa asoo jabsan raadiyaha si uu damin ugu dhigay Isaaq ma rumaysan mana dhigin taleefanka balse Jubba waxa uu weydiinayaa su'aalo Jubba waxa uu sheegayaa inuu doonayo inuu barto Isaaqna waxa uu isku dayayaa inuu jaro raadiyaha balse wali ma shaqeynayo Jubba waxa uu sii wataa su'aalihi aan muhiimka ahayn markaas Isaaq waxa uu diidayaa inuu ka jawaabo su'aalaha Jubba waxa uu ku hanjabayaa inuu mar kale toogo doono maasis taasoo ah arrin khatar ah haddii uu wali nool yahay markaas Isaaq waa aqbalaya wuxuuna Jubba ka codsanayaa inuu asigu bilaabo hadalka inta uu Jubba hadlayo Isaaq waxa uu qaraarad ku sawirayaa dhulka si uu u qiyaaso jihada ay xabaddu ka imaanayso Jubba waxa uu sheegayaa inuu yahay muwaadin Ciraaqi ah oo doonaya inuu badbaadiyo dalkiisa wuxuuna Isaaq ka codsanayaa inuu wax ka sheego qoyskiisa laakiin Isaaq waxa uu leeyahay taas aniga iyo gaar tahay Isaaqna sidoo kale uu ku maadsadaa fikradda Jubba isagoo leh dadka aad dilayso waa dadkii waddanka hormari lahaa kuwa dhisaya tubooyinka iskuulada iyo kaabayaasha dhaqaalaha Jubba waa qoslaya waxa uu leeyahay lacagta halkaas laga helo waxa loo celinayaa Mareykanka waqtigu sii socdaa Jubba waxa uu sii wataa su'aalihii Isaaqna waxa uu ka fogaanayaa inuu ka sheekeeyo shakhsiyadiisa Jubba mar kale waxa uu ka hanjabayaa inuu toogo doono maasis laakiin Isaaq hadda ma rumaysan Jubba si uu u muujiyo qatartiisa waxa uu sheegayaa iskoobka uu wato maasis ninka iska lahaa wuxuuna xiganayaa hadalkii maasis ee hore tanina waxay muujinaysaa Jubba inuu dhageysanayo wada sheekaysigoodii markii ay imaadeen ilaa hadda Isaaqna waxa uu arkayaa mid kamid ah meydadka oo leh raadi waxa uu isku dayayaa inuu ka soo qaato balse ma awoodo xitaa haddii uu adeegsado ul isagoo aan ismuujin markaas Isaaq waxa uu isku dayayaa inuu caabiyo balse dhaladii biyaha ayaa maran sababtoo ah xabad ayaa duleelisay Jubba waxa uu xaqiijinayaa inuu asiga dhalada si ula kaca u toogtay anteenada iyo lugta Isaaq si uu u dareemo xaaladda xun aan ka baxsiga lahayn una dhageysto hadalkiisa u dambeeya marka uu dhimanayo markii uu Isaaq u fiiriyo xabadii uu ka saaray lugtiisa waxa uu bilaabayaa inuu qiyaaso sniperka qoriga uu haysto waxa uu sidoo kale ugu yeerayaa argagaxso balse Jubba waa qoslayaa isagoo leh Mareykanku waa kuwa dalalka shisheeye hubka ku soo galay iyagoo doonaya inay laayaan dadka intii uu Jubba hadlayo Isaaq waxa uu sii wataa xisaabtiisa ugu dambeyntiina waxa uu ogaanayaa in Jubba isku qarinayo qashinka
waxa uuna ku jiraa xaalad adag muddo dheer, weliba iyadoo heerkulku xad dhaaf yahay, taasoo ka dhigan in ninkaanu yahay xirfadle dhab ah. Jubba waa diidayaa in uu yahay sniper-kii caanka ah, wuxuuna mar kale sheegtaa inuu yahay nin caadi ah oo Ciraaqi ah. Markii uu dhageystay lahjadiisa, Isaaq waxa uu malaynayaa inuu yahay askari hore oo Maraykan ah oo qiyaamay ciidamada, balse Jubba waa iska fogeynayaa arrintaas. Waxa uuna sheegayaa kaliya inuu dilo dadka asiga soo weerara. Markaas Isaaq waxa uu la wadaagayaa sheekada saaxiibkiisii ugu fiicnaa yaraanta, waxayna markii dambe si wadajir ah ugu biireen ciidanka. Ugu dambeyntii, Isaaq haraadka iyo daalka ayaa si saa'id u saameynaya. Waxa uu ku dhacayaa dhulka isagoo maqlaya Jubba oo leh afkaada wuu qalali doonaa. Kadib Isaaq waxa uu isku dayi doonaa inuu khiyaano Jubba, isagoo jaakada iyo koofiyadda iyo qoray si uu derbiga u kor muujiyo. balse Jubba ma aaminayo. Koofiyadii ayaana dhinaca kale derbiga uga dhacday, taasoo hadda ka dhigan inuusan madaxa difaaca karin. Dadkaas oo gala waxa uu sababaa inuu ooyo. Waqti dheer kadib Isaaq waxa uu go'aansaday inuu gaaro derbiga kale si uu meydkaas u baarto. Waxa uuna ordayaa dhanka mid ka mid ah meydadka, waxa uuna qaataa bacdiisa iyo raadihiisa, kadibna dib ayuu ugu cararayaa derbiga isagoo ka dhuumanaya rasaasta Jubba. Bacdaas waxa uu ka helayaa biyo iyo naanac oo si degdeg ah u cuno, balse nasiib darro raadiyo ma shaqaynayo. Jubba waxa uu rasaasta ku furayaa derbiga isagoo dhaawac culus u geysta muraayadda Isaaq. Si lama filaan ah, Isaaq waxa uu maqlayaa dhawaaq, waxa uuna ogaanayaa in Maasis weli nool yahay. Isaaqna waxa uu sheegayaa goobta uu joogo sniper-ku. Maasis waxa uu isla markii soo qaataa bir si uu u ogaado qashinka. Inta Maasis si tartiib ah u dhaqaaqayo si uu u gaaro qorigiisa, Isaaq waxa uu mashquulinayaa Jubba isagoo sheeko yar la galaya. Isaaq waxa uu ogaanayaa in Jubba hore macallin u ahaa Baghdad, ardaydiisii ayaa la dilay markii ay Maraykanku duqeeyeen. Markaas ayuu go'aansaday inuu ka argoosto. Kadib Jubba waxa uu weydiinayaa Isaaq sababta uu u haayo muraayadda jaban, laakiin Isaaq wuu diidayaa inuu ka jawaabo. Markaas Jubba uu hanjabayaa inuu mar kale tooga doono Maasis si uu u badbaadiyo Maasis. Isaaq waxa uu qartaa inuu haayo muraayad jaban, waxa uuna u sheegayaa sababta uu haysto inay tahay xasuus hore oo saaxiibkii oo u dhintay qalad asagoo u galay, walina uu ka xun yahay. Dhanka kale Maasis waxa uu toosinayaa qorigiisa isagoo indha ka cabir u tooganaya dhanka qashinka, waxa uuna ridayaa dhammaan xabadihiisa uu hayay. Isaaqna waxa uu ridayaa xabadihiisa si uu uga dhigo in xabadaha uu soo riday isaga. Maasis waxa uu isku dayayaa inuu mar kale xabad rido. Jubba si lama filaan ayuu u toogtay, waxa uuna kaga dhuftay garabka. Isaaq waxa uu weydiinayaa Maasis inuu soo gaaro derbiga. Nasiib darro, markii Isaaq uu isku dayay inuu caawiyo saaxiibkii, Jubba waxa uu si toos ah uga toogtaa madaxa. Isaaqna waxa uu arkayaa saaxiibkii oo dhimanaya, waxaana ku dhacaya niyad xanuun badan isagoo leh waxaan rabaa inaan aado gurigayga. Jubba waxa uu sheegayaa Isaaq haddii uu rabo inuu baxo inuusan tooga doonin, laakiin Isaaq wuu ka shakisan yahay. Markii dambe Jubba waxa uu Isaaq weydiinayaa sababta uu u joogo halkan iyadoo dagaalkii dhamaaday. Isaaqna waa yara aamusa, kadib waxa uu qartaa inuu isagu dilay saaxiibkiisii hore. Waxa uuna toogtay sniper-kii uu la shaqaynayay isagoo raba inuu toogto cadowga. Waxa uuna dadkoo dhan u sheegay inuu dilay saaxiibkii cadowga. Si lama filaan ah, Isaaq waxa uu maqlayaa cod ka imaanaya raadiyaha, waxa uuna u cararayaa si uu u hubiyo, isagoo ku faraxsan inuu maqlo dad hadlayo, laakiin farxadiisa ma sii socon sababtoo ah codadkan wuu maqli karaa laakiin fariin uma diri karo. Si lama filaan ah, Jubba ayaa la hadlaya dadkii uu Isaaq maqlayay, waxa uuna isticmaalayaa magaca Isaaq si uu gargaar u weydiisto. Isaaq markii dambe waxa uu ogaanayaa in Jubba muddo dheer uu jabsaday isgaarsiinta ciidanka, isagoo iska dhigaya askar caawin u baahan si uu u soo jiito gargaarka, una dilo si fudud isagoo ka faa'iideysanayo isgaarsiinta uu jabsaday. Isaaqna waxa uu isku dayayaa inuu joojiyo wadahadalka, balse wuu ku guuleystaa waqti kadib. Isaaqna waxa uu toosayaa isagoo dareemaya xanuun saa'id ah, balse shimbir ayaa cunaysay jilibkiisa. Markii uu arkay xitaa inay shimbiru u malaynaya inuu dhintay, Isaaq waxa uu go'aansaday inuu halis qaato. Waxa uuna isticmaalayaa ul iyo xarig si uu u soo jiito qoriga Maasis, kadibna waxa uu jeestay qashinka oo u malaynayo inuu ku dhumanayo. Isla waqtigaas diyaaradda qumaatiga u kacday helicopter-ta ayaa imaanaysa. Si lama filaan ah, waxayna shaacisaa halka uu Isaaq ku sugan yahay, iyadoo aan ogeyn inay tahay damin. Si uu u badbaadiyo ciidamada imaanaya, Isaaq waxa uu riixayaa derbiga ilaa uu ka dumay, taasoo sababta boor fara badan oo uusan ogaanin Jubba halka uu ku sugan yahay Isaaqna waxa uu bilaabayaa inuu rasaas ku rido qashin kasta si uu u ogaado in Jubba dhintay. Ugu dambeyntii Isaaq uu istaagayaa, waxaana yaab ku noqotay in Jubba uusan soo ridin xabad, uusan ka faa'iideysan fursaddan. Tanina waxay Isaaq u muujisay inuu Jubba dilay. Wax yar kadib diyaaradda ayaa qaadaysa Isaaq iyadoo saartay sariirta loogu talagalay dhaawaca. Isaaqna waxa uu isku dayayaa inuu uga digo ciidanka Jubba, balse lama maqlayo sababtoo ah dhawaaqa diyaaradda ayaa saa'id u sarreeyay. Si lama filaan ah, Jubba waxa uu bilaabayaa inuu rasaasta ku rido diyaaradda, isagoo dilaya mid ka mid ah askarta caafimaadka ka hor inta uusan toogan duuliyaha diyaaradda. Diyaaraddii si degdeg ah ayay dhulka ugu dhacday, iyadoo si toos ah u dishay Isaaq. Jubbana waxa uu suurto gashay dhammaan inuu dilay ciidankii meesha imaaday. Jubba waxa uuna oofiyay ballantii uu hore uga qaaday Isaaq oo ahayd inuu dili doono. Jubba waxa uu mar kale jabsaday isgaarsiinta Maraykanka isagoo iska dhigaya askar caawinaad u baahan. Filimkeena intaas ayuu ku dhamaaday.